dhacdadan ayaa timid kadib markii nin ka mid ah dadka deegaanka Xawaadley ee gobolka Shabeellada Dhexe uu dilay wiilkiisa oo la sheegay in da'diisu ay aad u yar tahay. dilka ayaa la sheegay in aabaha dhalay marxuumka uu u adeegsaday toorey sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka ah. qof goobjooga ah oo dhacdada la socday ayaa Shabeelle uga warbixiyay falkaasi, waxaana uu sheegay in ninka dilka geystay uu ka mid yahay koox diimeedka loo yaqaano takfiir, kaas oo goobta isaga baxsaday. sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in ciidamada ammaanka ay sameeyeen howlgal dad lagu soo qabtay. wallahi niyo dalka Soomaaliya Soomaaliya oo qisaan ka dhacay tuulada Xawaadley gaar ahaan Shabeellada Dhexe. alxamdulillah niyo waa wax la yaab la dhacay inuu gariis oo tageera oo fadhiisira ayaa lagu dilay xalay. waxaa dilay oo amray qolada takfiirka la yiraahdo aabiis ah. dilka waxaa ka dambeeyay aabihii dhalay cunuga. raashin tacsiyo raashinkooda soo cuno dhahay sidaas darteed u dilo dhahay. magaalada waa ka baxsaday xal taas subaxii ciidamada dawladda raacdayeen magaalada waa ka baxsaday. oo badan xabada soo xigeen raqay loo leeyahay koonfurkeeda waqooyigeeda laga soo qabtay. kadibna waa la keenay laba kale marka horena afar laga xiray. dadka takfiir waa dadka la soo qabtay takfiir waa. arrintan ayaa sababtay in boqolaal shacab deegaankaasi ay isugu soo baxaan banaanbax xooggan oo looga soo horjeedo dhacdadaasi.